daawadayaasha qiimaha badan dunida meel kastoo ka joogtaan waxaa kusoo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka dunida. Barnaamijka maanta waxaan kusoo qaadan doonaa ninka ugu weyn xagga xubinta taranka ee bini'aadamka, ninkaasoo u dhashay wadanka Mexico. ninkan wadanka Mexico u dhashay ee lagu magacaabo Roberto Cabrera. haddaba su'aalaha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay inta badan inay dadku isweydiiyaan xubinta taranka haddii ay weynaato saameyn miyay jirka bini'aadamka ku leedahay mase qofka sumcadiisa ayay hoos u dhigtaa. su'aalaha noocaas la xiriira dib ayaan uga jawaabi doonaa iyo barnaamij la mida barnaamijkan ayaan uga hadli doonaa. laakiin ninkan reer Mexico oo 11 jir ayaa sheeganaya inuu haysto xubinta taranka adduunka, laakiin xubintiisa taranka ayaa gaaraysa cabirkeeda ugu yaraan 18 inji. ninku waxa uu leeyahay xubinta weyni markasta ma fiicna, waa sida laga soo xigtay Roberto Cabrera ee u dhashay wadanka Mexico. Roberto Cabrera oo u dhashay wadanka Mexico ayaa u sheegay wargeyska Mexico ka soo baxa ee Vanguardia inuu doonayo in loo arko inuu yahay qof naafa ah, maxaa yeelay xubintan taranka ee weyni ayaa kor istaagaysa inuu shaqaysto, sida ay qortay Huffington Post. haweenka sidoo kale way ka baqayaan ninkan inay la seexdaan. Roberto Cabrera oo u dhashay wadanka Mexico ayaa sawir gacmeed laga soo qaaday oo muujinaya xubinta taranka ayaa soo maray warbaahinta Isbaanishka, sida ay qortay Huffington Post. video YouTube oo lagu soo bandhigayo warbixin laga soo xigtay Yahoo ee shabakada wararka Isbaanishka ayaa la daawaday in ka badan 500,000 oo jeer. Roberto Cabrera oo u dhashay wadanka Mexico waxaa lagu tijaabinayaa xarun caafimaad, iyadoo dhaqaatiirtu isku dayayaan inay go'aamiyaan sida ugu wanaagsan ee loo caawin karo. Vanguardia ayaa soo warisay Roberto Cabrera oo u dhashay wadanka Mexico ayaa sida muuqata doonaya inuu liiskiisa xubinta taranka ku qoro buugga Guinness World Record oo loola jeedo buugga dhacdooyinka adduunka. laakiin Daily Star ayaa soo warisay in rikooryaasha aysan ilaalin rikoorkaas. wargeyska The Star ayaa sidoo kale qoray nin horey u sheegtay inuu leeyahay xubinta taranka ugu weyn adduunka oo u dhashay wadanka America lagu magacaabo John Falcon, oo la ogaaday cabirka xubintiisa taranka in ay ahayd 13.38 inji. su'aalaha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay bulshada dunida ku nool, ragga marka xubintooda taranka ay kacsan tahay iyo marka ay dansan tahay isku cabir miya? waa su'aalaha aan u baahannahay inaan ka jawaabno waqti xaadirkan. celcelis ahaan xubinta taranka ee jilicsan marka ay dansan tahay ayaa dhererkiisu yahay 3.58 inji ilaa 3.66 inji oo dheeri ah, halka celceliska xubinta taranka markay kacsan tahay oo ay u diyaarsan tahay xaalad galmo inuu qofku sameeyo ayaa waxay noqonaysaa 5.86 inji dherer ah iyo 4.59 inji oo wareeg ah, sida laga soo xigtay BJ International. haddaba xogtaan aan soo gudbaynay daawadayaasha qiimaha badan dunida meel kasta ka joogtaan, maalin kasta waxaan soo gudbaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. inaadna saaxiib la noqotaa janalka Masraxa Official si aad u ogaato waxyaabo badan oo dunida ka qarsoon. haddaba maalin kasta waxaan soo gudbaa barnaamijyo xiiso leh ay u badan yihiin barnaamijka dhacdooyinka dunida.